وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أحبتي في الله خطبة وحي كسب سنة خير الله سي خطيبك صلاة والركن اللباد أو إسلامك ولا سعتين شنتيرو إسلامك كتاغن يهي ددك ضيعوا صلاة قف كان دكن وباب قونئه لكن قفك صلاة دكاذا أو هدنه waqtigeeda aan ilaalinin waciid badan ku soo arooray oo qofkaas inuu waadiga jahannamo uu ka cabaayo oo aayad quraan oo khatiibka soo qaatay fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayyan kuwa salaada dayacay oo waadigaas ghay la yiraahdo jahannamo ku yaala galayaan waxay ku fasireen Abdullah ibn Abbas iyo culimada waxay ku fasireen waa qofka salaada waqtigeeda dib uga dhigo dhalinyarada waxay u badan yihiin inaan salaada la ilaalin markii adinka la maqlo fadhi ku dirra la wata salaada lama qiimo lama siiyo qofka fadhi ku dirirkiisa iska wataa markii salaada loo aqimo oo la istaago asagoo weyse qabin uu soo ordaa weysadii uu saf u galaa waqtiga waa dhaafa ama qaar waxay sameeyaanba marka laga baxo kadib muddo la joogo maqribka wuxuu dukaa cishihi salaada duhurka wuxuu dukaa casirki musiibadaas fiir adiga qofkaasi waadi naar oo leeyahay صلاة وقت يا إلهي أسميه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقت قاس مركنا إلى لسان لقى الربا سكوبا خطبة تاسي كساب سنين هلا اسك إلى ليو فدكو درك الله فديو مسجد كاكاغا خير بدا آخرة أسعتها آخرة هدي لتغنه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت شالله يقوممو هذا وحمد تريس ربي وإعلي wixii aan haleeyay hadda aan soo hagaajiyo fadhi ku dirka aan iska dhaafo aan salaadaha xaadiro hadda ma anfacayso marka hadda nolosha kugu jirtaahe intaan malaka mawdku qabanin salaadaha waqtigooda iska ilaali salaada subax meeqa dukato qofka salaada subax aan dukanin waa munaafiqkaas iska ilaali marka waxaan waday marka muhaadaradii ay noo socotay baryahan غزوة الأحزاب سنة كشنات أو هجرة عن صومرني قاشانبور إسبهيستي عرب يهود إلى النبي كسو الدولين عليه الصلاة والسلام وإسصاب بهيستين لكن إلهي سبحانه وتعالى جبيي مؤمنين تردقال لك كافيي ألنا أو شيء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال قال هذا إلهي وحويري وابعلنا عروضا كعلني وحقول الدقال كي كمجارن إلهي إن مؤمنين توحوك كافي الدقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها دبيل يعيد ما آذن أجيذ أن كسو الدرني وحاول حي قد نبي يا سحابتي سرنعي كفرديان قال هذا تمنكل دينعك لي كفرديان دينعاس قال هذا أي فرديان دبيلا كفرا إلهي يا كفر دينا عنا دبيل ملهن دريه راشينك أكر سماي ولا دبقديها تندوينك ولا سيبا ملائكة سيبيس طبعا كن أعيدا أيضا واحد قولة قارين مؤمنين ترى دقال أي سنجلين استورتور إيه واحد ما هي إلهي جبيه وان نقدين مركي النقدين وحان شاقناي إن نبي يا أصحابتي سبا أن لوغا أتكاكرين أود ملتري أي فهمين عدوغ إلهي وإن دعايد لغفره إلا يهدنا سيدا واي دعايد المسلمين تلك القيبها كان وأرقحيسو كان واقون يرصعد بس والله كلا جبيه بأي قدنبا
sidaasay ku socotaa weligeed waxaan sheegnay marka in rasuulka dacaayad lagu furay laba arrin dhacday darteed waana soo sheegnay oo rasuulka wuxuu guursaday sallallahu alayhi wasallam Zaynab binti Jahsh waxaana furay Usama Zayd ibn Harith furay asaana rasuulka ku daray Zayd asoo diidan iyada diiday nin adoona mar rabay tiri markaas aayad quraan ku soo degtay وما كان للمؤمنين وما كان ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم آيات دي كسو دكتي أغبى شيء هدي إلهي رسول كيس أي وحكمان نين مؤمن إناك مؤمن هذا خيار ملهن وكفير سهم ملهن علي رسول كيس أدونا إنك ويلكاس قرصته زيدة وأنا أغبى شيء لأن ديرني ما جرته لكن الله شهد وعد كاتو مركز دم وإسكافوري رسول كادو فر قرصة ليري وقرصة hadda ka hor oo ninkaasi yiri waa wiilkaygi carabtan caado waxay lahayn hore u soo sheegnay wiilkaygi qofka haday dhahaan ay wiil ka dhigtaan wiilka adiga aad dhasho la mid yaho gabartiisa naagta oo furay ama ka dhintay ma guursan kartid arrin waa taasoo dacaayaday ku fureen rasuulka si kale loogama adkaa karo rasuulka aan bar tilmaameedsanay dheen munaafiqiinta iyo cadawga ilaahay maxaa la sameeyay waxaa la yiri rasuulka عليه الصلاة والسلام زينب أو سكدي سكو أركي جبر قروح بدني أهيد سكدي سهدو كو أركي زيدا نقب ويل كيسه رسولك واجع الله ذي إذا بدرد أسفيري من ناق ننقب ورسولك جعلها يا وإذا بدرد ما يشوف قدام بيسوي رسولك واجع الله ذي قلبي كيسي كدكتي جعيلا قاضي gabartii aad marka u jeclaaday wiilkiisa waa ogaayay oo Zayd ahay ka bacdi uu soo furay waa furiyay saasoo nabi ku guursaday magaalada Madiina warkaas lagu faafiyay rasuulka loo dan leeyahay marka dacaayad socoto rasuulku adkaystay waa iska sabray ilaan waa afxumo iyo aflagaade midda labaadna waxay ahayd Zaynab binti Jahsh waxay ahayd naagtiisa shanaad إسلام كان أفر ما هي وحكة لما بنين آياتها القرآن كسود دقي لكن نبي يا أديك جانب كاس مركا الله فيريو اسكو مدمتين حيدا مركا ناكشان هذا وأروسي إلهي ما بنين دعاية الله غفري واسو مركا واسو شيخني إن إسلام كسيدي سبب دعاية الله غفره لك الجبية أيجا arrintaas markay dhacday kadib reer bani qurayda laga faraxashay qaswatu ahzaab ila reer bani qurayda yahuudi ahayd ugu dambeysay oo ballanti ka baxay waa la go'doomiyay kadib waa is dhiibeen rasuulka amar wuxuu ku bixiyay wixiiba tinta hoose u soo baxday oo raga in la dilo ilmaha laga shakiyo dhalinyarada waa la fiiriha tinta hoose hadii lagu arko madaxa laga gooyaa kow waa la baabi'iyay naagaha iyo ilmahana waa la qabsaday yahuudi sanadkii lixaad oo hijriga marka maxaa dhacay meeshaan saan rabnaa inaan ka bilowno sanadkii lixaad oo hijriga waxaa dhacay غزوة dhacda waxay tahay reer bani mustaliq غزوة bani mustaliq sanadkii lixaad oo hijriga niman carbeeda ay soo bahaystay sanadkii lixaad markii la gaaray hijriga رئيسك أو رير بني مصطلق حارث ابن أبي ابن أبي ضرار حارث ابن أبي ضرار عيدم تلكي سكين عيدم وحد دقاليهنا وحي عرب أو هلجرن وكان صدي رسولك ورك يا إسلام مركي سوق جاري إن قبل قابة أي سعته ومقالة المدينة وير لو سوق قاعد دونه عن إذا كنا في مركز غزوة الأحزاب مركي قالة الجبين إسبهيس كوين عرب أي صاد دياري كرتمه بجريمبا رسولك وحوير مركي جبان يبحن الآن نغزوهم ولا يغزوننا هذا كذب أنك كدولة ينوير مرضى ما نقصوا دول دونان قالذا أرين كان مركي من كان قالذا عن عرباد مركي بهيستان والرسولك أو كوره عليه الصلاة والسلام وأدري بريدة ابن الحصيب الأسلمي إيسو أجو إيسو حقيقي
warkii uu soo xaqiijiyey waa soo noqday markii warkii xaqiiqo uu noqday rasuulka asxaabtii kulli waa diyaariyey ciidamadiisa degdegowna ku baxay xaggoodauba aadayba laba arrin oo khatara dhici doonto shacbaan oo laba habeen ka tagtay oo rasuulka baxay sala allahu calayhi wasalam qaswadaas marka waxaa raacay munaafiqiin aan weligood bixin soo baxay munaafiqiin aan jihaad weligood soo aadin aan rasuulka raaceen sala allahu calayhi wasalam magaalada madiinana wuxuu u dhiibay zayd ibnu xaarif oo madax uga dhigay waana soo baxiyey sala allahu calayhi wasalam markii waxay asxaabtii intay dhex socdeen waxay heleen jaasuus la soo diray oo gaalada soo dirsatay oo muslimiinta akhbaartooda inuu u geeyo rabo isla markii waa qabteen waa la dilay nimankii madaxda ahay waxaa gaartay arrinkii cabsiyaa gashay rasuulka ceelkii uu tegey sala allahu calayhi wasalam oo muraysiic la dhahay oo biyaha ay ka cabaan labadii ciidan waa isu safteen weeraraa laysku bilaabay waa tuurtuuraa laysku bilaabay markaas kadib uu rasuulka hujuum amray hal mar in lagu boodo oo la galo dagaalka saafiina u siiban yihiin dagaalkiyaa sidaas lagu galay gaaladii mushrikiinteedu waa jabtay wixii la dili karo waa la dilay naagihii ilmihii waa la qafaashay iyo xoolihii oo dhan erigii iyo wixii meesha jooga waa haniimay noqdeen muslimiinta hal nin basaa laga dilay waxaana dilay nin ansaariya asagoo u maleeya inuu cadow ka mid yahay hal ninaa laga dilay ayib maxaabiistii laga soo qabsaday naagihii iyo waxaa ka mid ahay juwayriya bint alxaarith juwayriya bint alxaarith waxaa dhalay sayidka qoladaas wataa dhalay waxaa sahmi ahaan u helay haabit ibnu qays addoon macnaha la qaybiha addoommadu la qaybiha qaybtiisay naqatay gabartii nin sayidaana dhalay markaasuu mukaatabeeyey nebigaa dhiibay aana guursaday macnaha lacagow saaray lacagtaasaa xoroobaysa haddaa keento nebigaa dhiibay nebigaa guursaday sala allahu calayhi wasalam juwayriya binta xaarith waxay ka mid naqatay ummuhaat almu'miniin ka bacdi marka uu rasuulka guursaday waxay xoreeyeen asxaabtii 100 oo reer bani mustaliq ah sababtay u xireen maxay tahay oo muslimtay sabab nabigay xidid la naqdeen maadaama xidid ay nabiga la naqdeen 100 qof oo ka muslimtay waa la xoreeyay dowrka marka munaafiqiinta ay ku lahaayeen dhageyso maxaa dhacay marka hore waxaan u soo sheegnay cabdullaahi ibn ubay ibn salool in uu islaamka ciil u hayay gaar ahaan rasuulka sallallahu alayhi aad ugu xanaaqsanaay oo aws iyo khasraja asaga duubi rabeen sidaas darteed marka rasuulka magaalada madiine uu yimid asaga waa laga leexday marka rasuulka colaad dheer uu qaaday colaadaasna waa sii socotay reer bani qaynuqaac waa soo marnay inuu rasuulka ka hor istaagay reer bani nadiir waa soo marnay inuu yiri 2,000 oo ciidan oo aniga ila jirto aan idin keenahay waxba ka bixina magaaladiina jooga oo dagaalamo isdifaaca ana 2,000 oo ciidan idin keenaa arrinkaas markay dhacday ghazwatul ahzaabna oo asagana qalqal meesha ay muslimiinta galiyeen id yaqulu al munafiquna والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورنا أي دهان ومسلمين تأين يجب كل ذين كبعد ما حدعي طيب وحدعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو حصادري أجير أسقى أو لهاي أو جهجاه الغفاري جهجاه نلي هذا أو عيلك أصادر صدي si biyo ugu soo dhaamiyo waxay ceelkii isku cariiriyeen markii gaalada la jabshay nabiga hore kama soo naqalina meesha uu degay waxay meesha isku cariiriyeen nin Sinaan ibn Wabar liira oo Juhani ahay biyo isku dagaaleen biyo markay isku dagaaleen kii Juhaniga ahay waa qayliyo wuxuu riyaa macshar al-ansar ansar oo ka tirsanay madiina muslimiinta loogu tagaa laba qayb ahaayeen muhaajiriin hal qayb ahaayeeno muslimiinta ka yimid maka muhaajiriin la dhahay iyo wixii
wadamada kale ka yimid wixii madiina loogu tagayna muslimiinta madiina loogu tagayna ansaara la yiraahdaa ansaarta uu marka ka tirsanay umarna muhaajiriinta uu ka mid yahay ninka uu soo dirsanay muhaajiriinta uu ka mid yahay markaasuu ansaarti u dhawaaqay yaa lal ansaar ya ma'shar al ansar ansaaray habar wacda dhacay kii jahjaahi asna waa qayliyo ya ma'shar al muhaajiriin ya ma'shar al muhaajiriin qayla meesha ka dhacday wala soo habar wacday muhaajiriintii ansaar nin kasta hubkiisa u soo qaatay maxal dadka hadda jihaad ku jiro waa nabiga ciidankiisa calayhi salaatu wasalaam bani aadamkan waa daciif si kasto wali u yahay gaf iyo qalad waa gala nabi aadama geedan ha cunin la yiri waana cunay shaytaana ku qalqaaliye maho marka nimankaas awliyada ahay haddana shaytaan waa ka faa'iideysta waa isku diray hubkii alla isu qaatay laba safa loo istaagay muhaajiriin iyo ansaar ayaga isku dhici raba nimankii nabi maxamed soo tarbiyay calayhi salaatu wasalaam nabiga arinta ay soo gaartay saafihii in la isu siibtay oo meesha dagaal ka dhici rabo waa soo dhaqsaday safka labada saf dhexdooda istaagay markaasuu yiri abi da'wa al-jahiliya wa ana bayna adhhurikum habar wacashada jahiliyada maad hadda keentaan anoo idin dhex joogo oo wali dhimanin reer fulaano jahiliyada gaalada lagu yaqaanaa muslim kale seef uma siibto sidaas markay dhacday ay garteen in shaytaan iyo dhagar oo dhiga ay tahay markaasay hubkii iska dhigeen waa ismucaanaqeeyeen haba iswa ooyeen waa isku soo naqdeen intaas markay dhacday Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'iisul munaafiqiin warkii waa gaaray waana joogyaa markaasuu waqad fa'aluha oo hadda nimankii muhaajiriinta masaasay sameeyeen ma sidaasay sameeyeen markaan beledkayni keenay oo nagu dhex bateen may hadda sidaas sameeyeen hub noo soo qaataan arrinka ma ahuuri ilaa ninkii sida uu yiri sammin kalbaka yaakulka eygaaga cayili ha ku cunee nabi maxamed oo ka wada fiir eygaaga cayili ha ku cunee waayo arrinkan annaga nimankan heerkan gaarsiino yiri wadankayni aan u furnay beledkiina keenteen oo yiri hantidiina wax ka siiseen wallahi yaan ku dhaarto yiri haddaad ka cisho lahaydeen waxa gacmihiina ku jiro nimankan muhaajiriinta soo haajiray haddaad ka cisho lahaydeen beled kale idinka aadi lahaayeen madiina haddaan ku naqano yiri walla midka ciziga asaw iska wadaahe wuxuu magaalada madiina ka bixi doonaa kan dulliga nabi maxamed oo ka wadaa warkaas markuu dhahay waxaa la jooga Zayd ibn Arqam waa wiil hadda soo hana qaaday oo markaas la soo qaan gaaray warkii hadii uu maqlo waa xamili waay waa orda adeerkiisa u sheegay ninkan warkaas uu yiri waay aflagaadadaas sidaas markuu yirina adeerkii waa soo baxay nabiga u sheegay Abdullah ibn Ubay warkaas fidnadaas uu kiciyo waay agtiisa Umar ibn Khattab jooga markaas uu yiri Umar waa xanaaqay rasuulka Ilaahay iyo Ubaad ibn Bishr ninka la yiraahdo Amar hadile ninkaasay isku jifay yihiin oo isleeyihiin oo qaraabo soo yihiin Amar asaga hadilo gacantiisa ku dilo markaas uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أرنك صون قاوي ضدك هذا يكون شيكيستان محمد أصحابتي سودلا إلا إن قال هذا مسلمين تين يمديهين يوجدان إن منافقا قال هذا كتر سيها مؤجا ومركب عور عدان دلو ضدك معيلين محمد أصحابتي سودلا سمعت حما ماشي ضدك الدين تما بس وقال أيام wuxuu yiri dadka waxa ogeysiisaa hal la guuro taas waa mid horto inuu rasuulka aflagaadeeyay oo risamin kalbaka yaakulka magaalada madiina hadaan tagno waa ka bixi doonaa hantidiina ka cishtaha ka baxan magaalada waa niman soo qaxay intaas marka uu yiri rasuulka wuxuu yiri Umar dadka waxa ogeysiisaa in la guuro hal waa la guuraahe qof walba hashiisa iyo gaadidkiisa had yaarsado hal socdo waa xilli aan la guuri jirin waa xeelad military waa haddii la sii fadhiyo maxay tagaysaa warkii in la sii wado meesha fidna ka dhacdo si dadkii loo mashquuliyo xilli aan la guuri jirin oo rasuulka guurid amray gaadiidkii la wada koray waa la socday maalintii oo dhan waday
habeenkii oo dhan oo waday waa la daalay yaa laba isla hadashaan la waayay meelaa lagu furtay nin kastaba madaxu dhulka dhigaba si warkaan u baaba'o طيب arrinkii markii sidaas ay u dhacday warkii nabiga inuu maqlaan loo sheegay Abdullah ibn Ubay ibn Salul nabiga warkii inuu maqlaan loo sheegay waa soo orda nabiga u yimid markaasuu dhaartay wuxuu rasuulkii ilaahay warkaas aniga ma dhihin ilaahan ku dhaartay ma qultu ma qaala wiilkan wuxuu yiri oo yar aniga ma dhihino nin oday ah waa ogtahay wala takallamtu bihi kuma qawlino dadka asaga la joogo waxay dhahay rasuulkii ilaahay oo ansaarti ahay waxa laga yaabaa wiilkii inuu wax ismoodsiyo cunug dhalinyaro waaye oo hadalkii uu san xifdinina saasa dhici karto rasuulka warkii uu iska rumaystay waa iska dhaaf zayd wuxuu yiri marka zayd ibn arqam waxay asiibo yiri murug aad u weyn wiligay aan asiibin yiri ilaa warkii aan sheeg waa la beeniyay gurigayga iska fadhiisto yiri guriga markaan fadhiista alla soo dajiyay ida jaa'aka almunaafiquun suuratul munaafiquuna ilaahay soo dajiyay illa laga gaaro hum alladheena yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasuulillahi hatta yanfadu warkii uu sheegay ilaahay sheegay subhanahu wa ta'ala waxba siinina waxa rasuulka la jooga ilaa ay ka kala ordaan baahiyaaba dilaysay la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall midka aziizka wuxuu bixi doonaa sharafta leh kan dulaysan oo nabi maxamed uu ka wadaa kuwa saas dhahayo warkaas soo degay rasuulka wuxuu u cidiray ninkii wiilkii zayd ahaa soo murug gurigiisa la fadhiyo waa yimid marka uu yimid wuxuu yiri aayadu kor akhriye zayd waa farxay markaas uu ilaahay yaa ku rumeeyay hadalkaaga maxaa dhacay marka qisadan intii safka socodka lagu jiray waxa dhacay Aisha radiyallahu anha nabiga la socotay xaasaskiisa marka uu baxayo oo safar aada iyo jihaad aada ay rasuulka wuxuu sameey jiray waa u qoryo tuuri jiray tii qorgeeda soo baxo si aysan u kala masayrin oo wada jiray safarkan qaswadan waxa soo raacay Aisha gabar yaray ahayd oo hilib aan lahayn oo caate waxa lagu qaadi jiray rati inta aqal yar la dhisay oo qoryo lagu sameeyay ee aqalka gashaa oo isku daboosha waa la qaadaa ratiya inta la saaro lagu xirxiro aan la kiciyaa waqtiga guuritaanka la gaaray soo gashay aqalkii waxay soo hilmaamtay maray xaaje aaday ku sheeday oo caariye ay ku soo qaato walaasheed ay ka soo qaadatay ay meeshay ku soo xaaji gudahiisa uga dhacday waa baxda marka ragii waxay u maleeyeen inay ku jirto iyadan kuusha raadinteeda waana habeen kuusha raadinteedii u baxday waa qaadeen waa saareen waa ku xirxireen mana dareemin oo iyadan gabar yar oo caatay ahayd markay ku xirxireen ay dhaqaajiyeen oo ciidanka guuray ay timid meeshiyo cidle waa yaabtay waxay istir markay ku waayaan waa soo naqad doonaan si aad u kala dhumina meesha iska joog meesha iska fadhiisatay hurda qabata waa hurday waxay ku kacday nin saxaabiga codkiisa ayay ku kacday طيب صفوان ابن المعطل la yiraahdo oo ciidanka dabacadiisa waxay ciidanka gadaashooda u seexdaa kaasa soo mara meeshii markaas uu arkay qof dumar oo meeshaan hurdayso xijaabka intuu soo degan oo arki jiray wajigeeda waa gartay inay caasho tahay markaas uu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un warkaas ay ku kacday soo kacday zawjatu rasuulillaah rasuulka xaaskiisa miya Safwaan marka ratigii oo tujiyay Aisha saaray waa istaajiyay waa socday iyadoo meel waqti barqa ah la dagay oo ciidan ka furta Aisha la waayay oo la laayahay ay soo muuqdeen Aisha ninkan Safwaan uu hogaamiyayo kelmad aan taas ahayna isma dhihin markay dadkii arkeen ciidamadii ninkii soo wada Aisha Safwaan ninba war uu sheegay Abdullah ibn Ubay si uu neefsadow la aaye dacaayadu meesha ka furay labadan ma kala badbaadeen
waxay u hertayba asaga dartiis waayaba sumcad xumo furay nabiga gurigiisa uu cayahay warkiyaa faafay magaalada madiina la yimid wiil asaga u dhalo cabdullaahi la yiraahdo asagana kana cabdullaahi yaa la yiraahdo oo saxaabi oo fiican ajiro magaalada madiina afkeedu istaagay rasuulka ilaahay wuxuu yiri aabahay inaad dili rabtaan u malayahay anigii amar yiri ana gacantayda ku dilaayay waa cafiina iska dhaafo yiri markaasuu aabihiisa hor istaaga asagoo seefta u siiban tahay wallaahi magaalada madiina inaad galayno yiri ilaa rasuulka ku fasaxo adiga dulle ah rasuulka ilaahayna waa aziizo yiri markaasaa rasuulku u fasaxo yiri iska dhaaf waabaha waa u dul qaadaynaa markii magaalada madiina la yimid waa faafay Aisha xumaanay sameeyay Aisha warkaas uu faafiha ummadda dhan uu ka dharjiyay nabiga in la bartilmaameedsado oo sumcada laga dilaa la rabaa magaalada dhan warkiya ku faafay nabiga murug waxa uu sameeyo waay gurigiisa wax laga sheegaa waxyigiina waa soo daahay waxa uu sameeyo waay nabiga kaleey salaatu wasalaam hal bila waxyiga soo daahay oo warkana magaalada madiina uu dhex socdo Aishana aysan ogeyn war aysan u haynin oo nabiga tashi uu sameeyay asxaabta sayela la guriga hadii laga soo galo mashaakil waay maxaan sameeyaa kuwa maanta joogo waa ka daran yihiin kuwa shalay kuwa maanta joogo waa ka daran yihiin kuwa shalay dacaayada inay fidiyaan oo qofka sumcada ay ka dilaan oo been ay faafiyaan waa shaqadoodaba munaafiqiinta nabiga sidaas loo dacaadiyay kaleey salaatu wasalaam gurigiisa wax laga sheegay nimankan Iiraan oo dawlad islaamiga ku qortay waxay faafiyaan warkaas ay dhaan Aisha xumaanay sameysay markay fasirayaan nabiyullaahi Muuse qisadiisa iyo qoomkiisa oo nabi Muuse uu leeyahay inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara Aisha ilayhi ilaahi wuxuu ida amra inaad sac qashin ila nin dhintay ay weydiiyeen ninka ayaa dilay ilaahi wuxuu yiri sac qala saci gabal ka gooyay ninka ku dhufta meydka asaga sheega cid dishay marka aayadaasay waxay dhaheen baqarada la biray Aisha waayba Aisha waa in la biray dhaheen bal dulmigaas ka war marka Iiraan aad u jeedin waa dawlad oo shaytaanad waaye Aisha waxay dhahan waa in la biray Abu Bakar iyo Umarna caydooday ku tasbiixsadaan marka hadda qaswadan oo lixaad insha Allah ta'ala meeshan ku joojiyeynaa labadaas oo waxay sameeyeen musiibo oo nabiga inay caayeen kaleey salaatu wasalaam ay dulli ku tilmaameen la in rajacna ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahi al-'izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinna al-munafiqina la yafqahun magaalada madiina hadaan ku naqano midka izziga leh asagoo iska wadaahe wuxuu bixi doonaa midka dulliga rasuulka uu ka wadaa ilaahi wuxuu yiri ilaahi ya izzi iska leh mu'min rasuulka iska leh mu'miniinta iska leh laakiin munaafiqiinta ma oga maxay kala dhahan la tunfiqu ala man inda rasuulillahi hatta yanfaddu walillahi khazaa'inu samawati wal ardi walakinna al munafiqina la ya'lamun ilaahi dhulka iyo cirka khazaa'intooda asaga iska leh rasuulkii asxaabtiisa waxba ha siinina xoolihiina ka cishta magaalada ayaga ka bixi doonee ilaahi ya khazaa'inta iska leh laakiin munaafiqiinta ma yaqaanaan المهم وركي إن شاء الله تعالى انت سنكسو قبقبيهنا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم